Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada cawka channel. Maanta waxaan ka hadli doonaa faa'iidada ay noo leedahay toontu. Cilmi baadhis dhowaan la sameeyey ayaa sheegaysa in ay toontu cadow ku tahay cudurro badan oo dunida maanta ku faafsan, waxaana ka mid ah hargabka, kansarka noocyadiisa, cudurrada wadnaha ku dhaca iyo dhiigkarka. Toonta oo ka mid ah khudradaha cuntada lagu darsado ee laga isticmaalo dhammaan dunida, iyadoo laga raacayo dhadhanka ay cuntada ku kordhisa awgeed, ayaa dhakhaatiirtu ku talinayaan in la cuno, iyagoo ku sheegay inay jidhka ka caawiso kana takhalusto xumadda iyo cudurro ay ka mid yihiin shubanka daran, dhaxanta iyo hargabka, qaniinyada cayayaanka iyo cudurrada fangaska ka dhasha. Sidoo kale waxa ay khubaradu sheegayaan in ay toontu la dagaalanto calaamadaha lafaburburka, cudurka macaanka iyo bararka qanjirka xiniinyaha. Waxaa intaas dheer in ay toontu ay xoojiso habdhiska difaaca ee jidhka, kana saarto sunta jidhka ee ka dhalata cuntooyinka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.